نفتي ذا يدرغين وجير باني جبتي قلبي قوير الناس هاي جاب الروح النعم هاي جاب الروح النعم kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta wadaan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba waa joogtaan waxaan leenahay waqtiga idin wacnaado dhammaantiinba muuqaalka la gareeyo cid walba muuqaalka la gareeyo subhana allah subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeena umuure leedahay ilaahay inuu u saalaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ana awlaada uu barakeeya inta awlaadoonka ana ilaahay awlaad baaray hasiinta gurdoonka ana gur wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ee baweyna hasiyo qof walba muuqaalka sheerta ku qabtaa la gareeyana wax rabbi subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeena mal adduunyo aysan filaynin inuu ilaahay سبحانه وتعالى وسيا ذنبي والد كودنا بوينا ودافع جنة الفردوس لا على إلهي وكعزوما حاسدك وحن لنا هي ومن شر حاسد إذا حسد الحاسد لا يفلح بإذن الله الكريم وحكودا بين يهوك قصاره ورب سبحانه وتعالى عن كبرينا وحن دمانتين إلهي سبحانه وتعالى عن كبرينا أنت حنوصن إنه إلهي حنونك وكدر قاضي عافمان وجبدلو رب سبحانه وتعالى أنا أمد الصوماليات علايس كدبات تضي عليليجا ميرو بيجوان صوماليين إلهي وكسره waxaan eegi doonaa qiso cajiib ah oo ku saabsan nin jilaa ah oo fanaan ah kaas oo hadda ka hor lagu soo cunsuriyay dal uu aaday laakiin hadda ku guuleystay fanaanka sanadka dal ka mid ah dalalka waaweyn ee qaaradda Afrika haddaba arintaasi ayaan jeexjeexi doonaa hadduu Allah awood leh uu saamaxo muuqaalka si degan u daawo oo la soco lana wadaag saaxiibadaada magaciisa waa Musa Sandiyena waa fanaan ahna jilaa kaasoo hadda caan ka naqday dhammaan adduunka kadib markii saacadihii la soo dhaafay uu qabsaday baraha bulshada waa markuu ku guuleystay dalka uu ka soo jeeday inuu ka naqday fanaanka ugu caansan ama ugu qatarsan sanadka iyo waliba jilaaga ugu qatarsan ee sanadka taas oo keentay in baraha bulshada si weyn uu qabsado Musa Sandiyena kaas oo ku magac dheer Grad B waxa uu yahay waa fanaan waana sidoo kale majaajiliiste si weyn kaga qosolsiyo malaayiin dad ah wuxuuna u dhashay dalka Gani waxaana la sheegay in Gani muddo uu ku noolaa laakiin Gani uu ka tagay wuxuuna u boqolay dal kale halkaas oo muddo uu joogay laakiin wuxuu halkaasi kala kulmay wuxuusan filaynin waa dalka Bulgaariya oo uu aaday waxaana Bulgaariya uu kula kulmay Mr B faquuq aad u xun kadib markii ay ku faquuqeen qaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu uumay oo gaamnida iyo waliba qaabka kale jismigiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu uumay ayay ku faquuqeen taas oo keentay inuu cara iyo cuqdad weyn Mr B ama Mr Musa B uu dareemo mudday uu joogay Bulgaariya wuxuu la kulmayay faquuq iyo waliba naceeb ku dhisan xagga qaabka Ilaahay uu abuuray taas oo keentay in carab badan uu muujiyo Muuse ama uu dareemo cuqdad badan wuxuuna ku soo naqday dalkii hooye uu u dhashay markii uu adkeysan waayay faquuqa iyo waliba qaabka ay ula dhaqmayaan dadka ku dhaqan dalka Bulgaariya sida Muuse B uu sheegay fanaankan hadda qaatay bilada sanadka 2020 inuu yahay fanaanka ugu qatarsan dalka uu ka soo jeedo ee Gani waxa uu sheegay in faquuq xun uu kala kulmay dalka Bulgaariya taas oo keentay inuu ka soo cararo wadankaasi isla markaana uu ku soo naqdo wadankii uu u dhashay ama dal ahaan uu ka soo jeeday maadaama asoo yar uu aaday Bulgaariya muddana uu ku noolaa dalkaasi Bulgaariya ninkan majaajiliistaha ah isla markaana hadda naqday majaajiliistaha ugu caansan dalkiisa iyo waliba fanaanka ugu codka macaan ee ugu qatarsan sanadda 2020 ee dalka Ghana ayaa waxa uu helay lacag aad u tiro badan oo abaalmarino ah taas oo keentay in gabdho dhaadheer aad u qurux badan inay isku dilaan waxaana dadka Bulgaariya ay la yaabeen guusha weyn uu gaaray Mr Musa B ayakana barigii hore waxay ku sameeyay jireen faquuq ayakoo ku faquuqaya qaabka Allah subhanahu wa ta'ala uu uumay Muuse laakiin Muuse hadda wuxuu naqday xidig aan la loolid karin waxaana madaxiisa isku garaacaya gabdho badan oo isku sawiraya qaarkoodna u soo bandhiganaya guur iyo mustaqbal iyo aroos halka Bulgaariyana lagu faquuqi jiray Mr Muuse ayaa hadda naqanaya xidig sare waxaana saacadihii la soo dhaafay baraha bulshada ee lagu kulma sida Facebook Twitterka iyo waliba aaladaha kale ee la isticmaalo qabsaday Muuse Sandiyena oo si weyn sawiradiisa loo soo bandhigayo asoo 3 gabdhood 2 gabdhood iyo waliba islaamada dheer ah dhaxda ugu jira garbaha iyo dhinacyada ay ka haystaan taas oo fajac la naqatay kubii faquuqi jiray shalay ee Bulgaariya
sax ma aha qofka in lagu fuquuqo qaabka ilaahay uu uumay ama nasbiyadiisa waxayna ka baxsan tahay insaaniyadnimada mana aha wax fiican waxaa lagu tixgeliyaa qofka qaabku ilaahay uu uumay ama nasbiyada uu yahay waxaana lagu qadariyaa sidoo kale wax soo saarkiisa waana midda keentay hadda muuse inuu noqdo sanada 2020 ee aan ku guda jirno fanaanka ugu fiican ee dalka Ghana sidoo kalena uu noqdo majaajiliistaha ugu qatarsan ee wadankaasi taas oo keentay in lacaga fara badan uu ku guuleysto abaalbarno badan oo qaali ahna la siiyo waxaana hadda la sheegay in dalal badan oo reer galbeedka sida Yurub iyo Mareykan inay u direen casuumaado inuu ka qayb galo munaasabada xaflada waaweyn halkaasina uu ku soo bandhigo bandhig faneedkiisa iyo waliba majaajiliistinimadiisa laga daba dhacay oo hadda waxaa dhici karta inuu ku guuleysto bilado kale kuwa hadda uu qaatay ka waaweyn waxaana dadka Bulgaariyiinta ay la yaabi doonaan waxa awalka hore u fuquuqayeen ninkan Muuse oo hadda naqday xidig aan la loodi karin haddaba mar walba ku tixgeli qofka qaabkii Ilaahay u uumay iyo waliba nasbiyada uu ka soo jeedo waana muhiim midaasi in qofka aadamaha mar walba uu ogaado xaq Ilaahay dadka way u siman yihiin waxaas la is dheer yahay adduunka inta la joogo dadaalka qofka uu sameeyo